markasta meesha ku xukumaysa waa website meeshaad ka shidaal qaadanayso maxay website weeyaan marka halkaas ay ku qoran tahay join link ma arkaysaa wadankaad bedeli marka qof cusub rabtay inaad diiwaan geliso Middle East-ga ayaa tagi Allahu musta'an waayahay Middle East-ga markaan tago United Arab Emirates ayaan dooran okay wadankii waa bedelan yahay inuu bedelan yahay waxa ku garanayaa halkaas baa ii soo baxday United Arab Emirates kadib waxaan leeyahay join hoose taaba marka okay waayahay halkan ayaa ii soo baxday qof markaan diiwaan gelinayo wuxuu leeyahay marka for if business owner miyaad rabtaa inaad diiwaan geliso mise preferred customer waxa leeyahay marka preferred customer waxa weeyaan waa qof cusub oo 5% qiimo dhimis helaya qofkan kalena waa qofka bogoska qaadanaya marka hadaan doono waxaan dhihi karaa kaasaraan ku dhufanaya okay sign up diiwaan geli qof cusub oo for if business owner noqon doona marka waxa uu weydiiyay waxa degan tahay Imaaraat maxaan odhanayaa yes or no maka boodiyay not haddaan idhaahdo waa uu iga celinaya haddaan yes idhaahno waan sii soconaya maxay kula tahay inaan odhanayo account-ka waa kan hadda aynu wadno walaal haddii qof cusub siduu isku diiwaan geliyo Cumaro walaal waan ka xumahay cilada adiga waa mushkiladu waa account-ka weeyi marka insha Allah account-ka waynu wada saxaynaa waanan ogahay walaal ciladaadaas aad baan ogahay waniga hore naga wada hadalnay haddii aan ilaa hadda la sixin oo lagu sixin insha Allah waan ku dhamaystiranaa walaal don't worry insha Allah wada haysataa account-kaaga caadiga because walaalkan waxa ka qaldan email-kii baa qaldan ma filaya oo ka qaldan marka dhibaato kale ma jirto laakiin indhaha ka sii eega walaal wayna duubayin hadhow dib baad u geli doontaa wax mushkilada ma leh account-kaaga iyo ID-gaaga waxa badan waad isticmaali kartaa marka password-kii baa ka maqan marka insha Allah si fiican u fiiri iyagoo duubanna waad helaysaa casharadani marka maaha wax niyad kugu keenay walaalo okay aad baad u mahadsantahay Umar Xarago way waaye halkan waxaan leeyahay marka yes baan leeyahay wax raba qof cusub inaan ka diiwaan geliyo wadankii marka hoos baan u sii raacaya continue baan leeyahay markaan doonayo qof inaan diiwaan geliyo weeyaan walaalayaal ma sha Allah kadib waxaan leeyahay continue ayaan leeyahay continue markaan idhaahdo welcome to the Forever family biguri waxaan leeyahay click baan saaray halkan ku soo dhaw Forever living inta markaan sameeyo waxaan leeyahay continue okay continue markaan idhaahdo maxaa ii xiga waxa ii xiga walaalayaal waxa weeyi personal information ka qofkan inaan qoro on diiwaan geliyo tusaale ahaan waxaan diiwaan gelinayaa Aisha middle name-keeduna ay tahay Maxamed last name-keeduna ay tahay Umar oo kale way email-keega waxaan ka dhigaynaa Aisha 2020 baan ka dhigaynaa gmail.com okay intaas baan ka dhigay password-kana Aisha baan intaan uga dhigaynaa password-keega inta ugu horeysa insha Allah password-kana intaasaan uga dhigaynaa waa in labada password isleeyihiin xagga kale password-ka ku gelinaa mar kale waa qof cusub marka la diiwaan gelinayo walaalayaal okay insha Allah ma arkaysaan password-kii waan ku qoray magacayga waan ku qoray xaggan telephone number-keega aan ku qoraynaa telephone number maxaynu uga dhignaa 4511306 intaas baan uga dhigayaa dalashadana waxaan uga dhigaynaa weydiida lambarka waa inaan 25263 ka horeysiyo xaggan waxa leeyahay marka date of birth maalintan soo horeysinaya waxa dhalatay 15kii bishii afraad 1994 bay dhalatan idhi okay marka waxaad soo horeysinaysaa maalinta oo qofkan dhashay waxaad ku xigsiinaysaa bisha kadib waxaad ku xigsiinaysaa sanadka ma fahanteen inta kadib halkan waxaan dooranayaa meesha laga helayo salaam muqdisho laga helayo ama laahay adreeska halka adreeska waxaan ku qorayaa muqdisho qofka cusub ee Soomaaliya marka ka diiwaan gelinayo weeyaan then halkan hoosta waxaan leeyahay Dubai baan dooranayaa Dubai markaan doorto waxa ku xiga waxa weeyaan insha Allah inaan halkan ka hoostana Dubai ka sii doorto insha Allah ta'ala kadib waxa ku xiga walaalayaal halkan inaan zip code ka iskaga boodaya inta kaliya buuxinaya okay inta markaan buuxiyo I know my sponsor baan leeyahay sponsorkayga
waan garanaya marka sponsorkaaga ID-giisa qofkan yani wakiilka ka ah qofkani ID-giisa ayaa halkan la gelinaya tusaale ahaan waxaan gelinaynaa ID-gaas u sarreeyaan gelinaynaa kadib waxaan leenahay search baan leeyahay okay search markaan idhaahdo maxaa soo baxay Cusmaan ayaa sponsorkaaga because adiga ay Cusmaan ayaa garanaya geli baa lagu wad gelisay kadib waxaan leeyahay I wanted to be contacted yes baan leeyahay halkaan yes baan dooranaya waaba intaa walaalayaal mar kale aan iska hubino gabadhan diiwaangelinay waxay ahayd Caasha Maxamed Cumar emailkeegu yahay sidaasi passwordkeeguna uu yahay sidaasi lambarkeegu soo yahay uu yahay soo kale passwordkeegu yani dhalashadeedu waa taas waxay degan tahay Muqdisho Dubai bay sii hoos tagtaa because qaaraadkeenu ka tirsanahay profisigu waayadna waa Dubai waxay noogu xigaa waxa weeyaan sponsorka ama wakiilka EID-giisa baan gelinay search baan nidhi magaciina inoo soo baxay kadib waxaan dooranay yes I want yes baan doortay dib waxaan leeyahay markaa continue baan leeyahay marka passwordka waa inaan ma garanaysaa ay haysto okay passwordka Aisha 2020 oo kale waa inaan haysto iyo ma garanaysaa ay ID-ga okay insha Allah kadib markaan intaa galo maxaa xiga qofka waan diiwaangelinay iyadana email baa u dhacaya adigana email baa ku soo dhacaya aniga email baa hadda soo dhacay because aniga diiwaangeliyay iyadana waxa u dhaci doona email baa u dhici doona insha Allah marka wuxuu inagu yiri welcome ayuu yiri account-kaaga Caashay tag buu leeyahay marka account-keegii baan tagaynaa insha Allah account-ka maxaan ku galaynaa email-kan aan ugu sameeynay Aasha 2020 iyo password-kii aan u sameeynay marka go to account baan leenahay insha Allah go to account markaan idhaahdo waa kan walaalayaal go to account baan leeyahay okay hoosna waxaan leeyahay passwordkii aan u sameeyay ayaan ugu qorayaa okay insha Allah passwordku muxuu ahaa Caasha 2020 buu ahaa haddaan doonayo inaan hubiyo in passwordku sax yahay halkaa yar baan furanayaa okay insha Allah intaa markaan sameeyo Allahumma musta'an login baan leeyahay okay login markaan idhaahdo wuxuu geenayaa account-kii Caasha ayuu geenayaa marka screenshot ayaa waxaan ka soo qaadan doonaa Caasha ma garanaysaa account-keega qaybta profile-kaasaan u diri doonaa xarunta Hargeysa si dalab loogu soo sameeyo insha Allah because ID-geygii wax walba halkaas ku qoran yihiin qofka information-kii hadda profile-kii aan tusayay ayaan walaalayaal screenshot ama sawir ka qaadanaynaa account okay maasha Allah aad baad u mahadsantihiin marka intaa qof walba uu sameyn karaa soo ma waa kan Caasha Maxamed Cumar ID-geyga waa kan intaan markaa screenshot ka qaadanaya screenshot ka qaada marka ka bacdi xarunta Hargeysa u dir maasha Allah intaas u baahan yihiin macluumaadkaas u baahan yihiin Caasha haddaan doonayo hadda wadannada loo ogol yahay waxa weeye waa Bahrain iyo Jordan iyo Kuwait soo ma haddaan doonayo inaan Jarmal u active gareeyo halkaa uma dooranaya Jarmalku waa wadankii waa qaaradee waa Allahumma musta'an waa Europe soo ma Europe waa halkee aaway Europe waa taas Europe markaan doorto Germany baan ka sii dhex dooranaya Germany waa taa walaalayaal kadib submit baan leeyahay marka waxay ii soo geli doontaa wadannadii liiska ayuu ii soo geli doonaa insha Allah ta'ala la ogolaa ayuu walaalayaal soo geli doonaa ma garanaysaa soo raasirka yaha insha Allah okay marka inaad fahanteen aan rajeynayaa sida qof cusub loo diiwaangeliyo isla markaa qofka cusub wadannada liiska ee uu ka shaqeyn kara ID-giisa wadanno kale loogu soo dari karo iyadana inaad fahanteen baan rajeynayaa insha Allah aad baad wada mahadsantii walaalayaal okay insha Allah halkaas ayay soo geli doonaa marka wadannada u baahan tahay sidoo kale markay labada CC buuxiso Caasha halkan waa inay tiraahdo forever business owner opportunity upgrade iyada assistant supervisor iska dhigaysa because hadda Caasha waxa weeyaan waa preferred customer waa qof cusub waana member weeyaan marka waa inay iyadu ka dhigato account-keega qof cusub oo labadii CC buuxiyo qof kale qori kara halkaas bayna taabanaysaa okay forever business owner waa maalinta labada CC ay soo buuxiso dad badan baa markay laba CC buuxiyaan ku oranayaan account-keygii dad ma diiwaangelin kareen maxaa dhacay dee waxa weeyaan waa inaad ka dhigato forever business owner adiga ayaana ka dhiganaya marka caawa laga bilaabo qofku markuu labada CC buuxiyo waa inaad account-kiisa upgrade ugu samayso oo adigu assistant supervisor ka dhigto oo preferred ka qaado levelku bedelo qofku okay oo loo ogolaado qofku inuu ma garanaysaa qofna qori karo alaabtiisina uu joogto oo darajada bedelo
taana shirkadu innaga ayay gacanteena gelisay awal shirkadaa samayn jirtay laakiin hadda ma samayso qofkan isagaa choice la siiyey adigu kala dooraa lagu yidhi okay marka waa inuu doorto qofkii marka halkan markaynu buuxino dhalashadeeda iyo ayay gelin doontaa tigtig bay saari doontaa saas ayay magaranaysaa akoonkeygii ay dad ku diiwaangelin kartaa isla saacadaaba aad baad u mahadsantihiin walaalayaal inaad si fiican u fahantiin baan rajeynaya trainingkana aad wax barar ka kororsateen